Seminaaro lagu baranayo maamulka iyo macalinimada ayaa ka socda magaalada Gaarisa kaasoo loogu talagalay in kor loogu soo qaado tayada waxbarasho ee madaarista iyo macaahida haweenka ku dhaqan magaalada Gaarisa sida Sheekh Maxamed Guure uu u sheegay Sahan TV channel. Bismillahirrahmanirrahim. Magacayga waa Maxamed Miraad Guure. Title-ka maanta meesha ku jiro waa tababare macallimiinta markiiska Bin Sirin. marka labaad waa ku mahadnaqaya Hashim Koosar iyo TV-ga Sahan iyo Radio Midnimo oo waraysigan iyo duubayaad wanaagsantiin. sidoo kale annagana waa ku mahad celinaynaa Sheekh Maxamed bal haddii aan bal ku weydiiyo dowrooyinka noocan oo kale ah ma markii ugu horreysay aad qabataan mise kuwa kale badan baad soo qabateen? Shima ma santahay dowradantii ugu horreysay maaha dowrooyin badan aan dhowr waqti kala duwan soo qabanay ilaa 2017kii 18kii 19kii iyo 20kii hadda u dambeeyay dowrooyinkaas halkan bisana kama aan qabanin meel kala duwan oo dhadhaab iyo xariiq xogti ka mid yihiin qaybaha xataa Ethiopia qaybo ka mid ah marka Bin Sirintii ugu horreysay maaha taqriiban waa tii afraad baa la dhihi karaa intaan xasuusnahay oo aniga aan joogay dowrooyin kale oo aanan joogin oo la qabtin way jiraan waxyaabaha ugu badan markaasi oo aad ka hadlayseen maxaa ka mid ah dowrooyinka aan la wadaago Bin Sirin laba qaybood bay ka kooban yihiin dowrooyin macalinimo tababar macallimiin iyo dowrooyin tababar maamul qaybta maamulayaasha marka laba qayb aan kala qaadnaa marna macallimiinta aan tababarnaa marna maamulayaasha qolo walbana marka shaqada ku aadan oo ayagu marka khusayso oo tababarkooda ku ekaadaa waa gartay hadda maanta oo kale maxaad samaynaysay maanta waxaan u banaysanayn tababar macallimiinta la siinayo markiiska Bin Sirin iyo maraakiis kale oo ay isku xidhan yihiin oo si bahwadaag u yihiin tababarka maanta wuxuu ku saabsanaa habka macalinimada ama habka gudbinta macalinka aqoonta uu gudbinayo oo ardayda barayaasha masalan sababtoo macalinka markuu soo dhawo jaamacad ama madrasa dugsi sare inta badan wuxuu macalinka noqdaa maraakiista islaamiga ee magaalada gaas ku yaala laakiin fursad horay uma soo helin in uu macalinimadiisa iyo awoodiisa baritaaneed ay salmugeed u fadhiisato waayaan dama marka fursad waxaa loo helay dad in badan soo shaqaynayay oo macalimada ku soo jiray in ay sii gudbiyaan aqoontooda waayo-aragnimo oo macallimiinta ay turxaan bixin iyo toosin badan ay u sameeyaan maanta marka macalimadaas ku saabsanaa casharkan waa gartay maadaama maraakiista iyo macaahidda carabiga ah ama islaamiga ahba ay aad u badan yihiin weli aan idinku ma ka shirteen oo ma fiirseen in la helo macahad macallimiinta ay ka soo baxaan islaamiga ah ee ku yaallo magaalada Gaarisa? baahidaas aad bay u jirtaa oo baahi weyn oo jirto culayskeeduna marba marka dambayso la sii dareemayaa aan hadda intaan xasuusanahay meel intii la iskugu yimid la yidhi macallimiinta si wada jiro macadha loogu sameeyo si sax ah uma xasuusto laakiin qolo walba iskeedana iyadoo macallimiinteeda u tababarato oo waxaan loo yaqaano juhud fardi ah nin walba iskii isku xilqaamo taasaan ka warhaya waa gartay fariintaada ugu dambe fariinteeda ugu dambayso waxay ku saabsan tahay macallin walba wuxuu u baahan yahay shaqada uu gudbinayo ee macalinimada inuu barto labay kala tahay inaad aqoon leedahay iyo inaad aqoon u leedahay inaad gudbiso aqoontii ma suuragelaysa marka inaad aqoon leedahay bas inaad ku shaqayso waxaad u baahan tahay xirfadaada macalinimo kaliya maaha dowladda xaadirto YouTube-ka jiro Facebook baa jiro goobo badan wax laga bartaa jirto yaa jiro idaacadaha wax laga bartaa marka inuu macallinku uu mar walba heegan u ahaado inuu kobciyo xirfadiisa ama aqoontiisa macalinimo si shaqadiisana ay salmugeed u fadhiisato horumarna ay u samayso ardaydii wax barahayay dadku adeegayeen adeeg fiican oo hufan ay u helaan